dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja. waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. dhegaystayaal toddobaadkii hore sidaan ku ballan qaaday kanina waa barnaamij ku saabsan maansada maalmaha roobdoonta ay maansayahanadu eebba ku baryaan. Ha yeeshee inta aanan taa u gelin aan ka hormariyo dabeecadihii ay lahaayeen abaarihii Soomaalida ku dhici jiray iyo basanbaas wixii ay bulsho weynta ku markan jireen. siduu waayeelku u warhayo dhowr sano markay soo wareegtaba waxaa deegaanada Soomaalida ka dhici jiray welina ka dhaca abaaro ay dadka iyo duunyaduba ku naaftaan. nasiib darro cilmiga saadaasha hawada iyo cimilada dalka lagama aqoon, sidaa darteed shalay iyo maanta toona abaaraha bulshadu kama tabaabushaysato. laba xilli roobaad oo isxiga markii la waayo ayuunbay ummaddu sansaan abaareed dareemi jirtay. mid saddexaad markuu u raaco oo keliya ayuunbayna ogaan jirtay abaar ba'ani inay hareeraysay. hababka isgaarsiinta iyo iskaashiga caalamiga oo aan jiri jirin awgeed siday maanta isugu furan tahay dunidu isuguma furayn. sida waayadan la isugu gurmadana aadanuhu isuguma gurman jirin. sababtaa darteedna abaartii dhacdaba waxaa xigi jiray geeri aan xisaab lahayn iyo macluul baahsan oo badanaa aan waxba laga qaban kari jirin. si kastaba ha ahaatee waxay abaaruhu ugu daraayeen intii aanay Soomaalidu baran ganacsiga badaha. waxay ugu qoob cuslaayeen dunida kale intii aanay xiriir kala yeelan. xoolaha nool oo ahaa hantida qura ee ay lahaayeen baad iyo biyo la'aan kolkii ay eber la noqdaan ayuu dadkuna gaajo iyo cudur u dhammaan jiray. tolal dhan oo reer hebel loo aqoon jiray ayaa tusbax go'ay noqon jiray, markaasoo tirada guud ee dadweynuhu aad u gaasirmi jirtay. goortay talefara ka haadana wixii la badbaadin karo ayay badbaadin jireen. bar xoolaad iyo dalag beereedba goortay ku diimaan ayay dadka wixii maantaa uu socod ku harsan yahay u luudin jireen meel wuxuun nololah ay ku maqleen. wixii kalena halkooda ayay uga dhaqaaqi jireen. iyaga iyo maqaadiirta ayay isaga tegi jireen. anoo gabana ayaan waxaan maqli jiray abaar diirata ah oo dalka ka dhacday awgeed in tal Soomaaliyeed uu beri kob cidla kaga tegay dumar tiro badan oo macluul la dergan waayey. waxay ahaayeen dumar markaas weli noola oo hebla iyo hebla loo garanayo, dumar ay ku jireen hooyooyin iyo ayeeyooyin miiran oo sara joog daaye fadhigii tahli kari waayey. waxaa la yidhi xero ay u oodeen bay sidii xoolihii ku gureen, dabadeedna intay oodafadii u dheereeyeen kaga dhaqaaqeen. madahaygana si dhacdadaasi aanay xusuusta uga bixin balli meeshaas ku yiil ayay bulshadii arrintaas ogeydi naaga oodays u bixisay. welina Soomaalida qaarkeed ayaa taqaanoo agagaarkiisa degta. dhinaca kalena sida ila tahay meel cidlo ah lagama mala awaalin sheeko xariirooyinka Soomaalida kuwooda dadqalatada ku saabsan sida dhegdheer iyo qaar kala midka ah. mar walba oo sheekooyinka caynkaasihi ay igu soo dhacaanba waxaan iska kari waayaa inaan maleeyo wuxuun xiriira oo ka dhaxeeyey iyaga iyo abaarihii hanti oo idil uu dadku ku waayi jiray dalkana ka dhici jiray. waase male malana run ma wada noqdo. waa tahay aanu noqdo maansada xilliyada abaaraha eebba lagu baryo ee roobdoonta ku saabsan. raggii tiriyeyna waxaa allaha u naxariistay ka mid ahaa Carays Ciise Kaarshe oo ahaa saarowgii meesha sare soo gaarsiiyey hees cayaareedda saarka loo yaqaan, gabaygana la soo simay. waxay ahayd guyaashii 1964 ilaa 65 iyo abaartii bacnayd ee waagaa dalka ka dhacday, gobollada qaarkoodna baastaaley looga bixiyey. baryahaas ayuu Carays tiriyey saar roobdoon ah oo si qoto dheer uu eebba ugu bariyey.
isla markaasna uu ku faahfaahiyey dad dunyo iyo degaanba dhibaatooyinkii ay abaartu dalka ku haysay isaga oo adeegsanaya aftahamo kasta oo uu ku muujin karo baahida iyo jilicsanaanta ay ummaddu qabto ayuu soo bandhigayaa sababihii ay la ahayd inay soomaalidu eebba naxariistiisa ku mudan tahay kuwaasoo ay islaamnimadu ugu horrayso wuxuu eebbe uga calaacalayaa abaarta darteed dharaar iyo habeenba kulaylka lala harsan waayey oo lala hoyan waayey wuxuu ka murugoonayaa dhirta qaawanida isku waraysatay ee markay dusheeda ku qallashay ay caleentii ka wada biday dabadeedna u ekaatay wax aboor ka haagay marka xigana si uu baryadiisa u cusleeyo wuxuu ka cabanayaa taagdarrida soomaalida wuxuu qirayaa inkastoo ay dawlad tahay haddana inaanay soomaalidu isu kaalmayn karin oo xukuumaddu aanay lahayn awood ay abaarta wax kaga qaban karto sababtoo ah iyadoo 4 sano oo keliya laga joogo gumaysigii shisheeye markuu dalku ka xoroobay wuxuu leeyahay eebow haddaan Soomaali nahay sanca ma naqaan eebow sida qaramada hore u maray farsamooyinka lagu tartamayo aqoon uma lihin eebow waxaanu dhaqanaa waa xoolaha nool oo geelu ugu foolaadsan yahay iyagiina abaartii baa la tagtay eebow caanaha iyo hilibka aan iyaga ka helo ayaanu weligaya ku noolayn maantase waa naga gabaabsi oo cayr iyo calool maran baanu ka simanay waxaanu nahay muslinkana waad u hiilisaaye eebow maanta na furo oo na badbaadi wuxuu yidhi habeenkii lama hurdo dharaartii lama harsado cirkii waa hoolan yahay dadkii haahduu hayaa hodan adiga ahoo islaamka u hiiliye ilaahowna hamba qabo na soo hoob waa horree higliyo geedkii harweyn abaar baa hoolato haraad baa looga kacay cadow hoostiisa iyo hog baa laga soo baxo tallaabadu hor uma kicin haddaan haahaabadnahay abaar nagu haawatiyo hantaaturra kama baxnee hodan adiga ahoo islaamka u hiiliye ilaahowna hamba qabo na soo hoob waa horree qaramada horay u maray hub halisay suubsadeen dayaxay ha ahaansadeen annuna xoolo aan horriyo horweyn aan soobsaniyo haleelo aan maalle iyo hilbiyo caanaan naqiin waa harag waxaan haysanee hodan adiga ahoo islaamka u hiiliye ilaahowna hamba qabo na soo hoob waa horree isaga oo aad moodo inuu ku kalsoon yahay ducadiisa in la aqbali doono ayuu meelaha saarka ugu dambeeya wuxuu carays ciise kaga baryayaa roobka uu Soomaalida ugu deeqi doono inuu noqdo mid lagu naaloodo oo dadka iyo dalka aan dhibaato u keenin wuxuu ku xijinayaa kooxa tiro yar oo habowsan markii laga reebo ummadda inteeda badani inay tahay muslim qumman sidaa awgeedna ay ilaahay gar ugu leedahay inuu roobkiisa ugu deeqo ugu dambaystana si isbihinbihini ku dhan tahay ayuu saarowgu eebba uga duraamanayaa roob ka da'a ka gees iyo ka gees dhammaan dhulka Soomaalida roob dooga iyo tigaada uu bixiyo lagu naaloodo abaarta iyo wixii ay dadka badayna lagaga raysto wuxuu yidhi habeen roob soo hugmo hanqar iyo rida hilaac ugaarta hawdka iyo haadkuba ay biyo helaan dadkuna haa la dhaho aan bala hoosta ugu jirin adaa noo heli karay allahayow nagu hagoog in doontoo hadaf jiro barkeen uu yahay habow hawraartii nebiga iyo hoggaankaan haysanaa hooguhu waa 1 iyo 2 dhulkeennii hooyo waan ka wada haybaysanaa hagaag baan kuu baryayay midaan loo gelin hayaan aan bala hoosta ugu jirin adaa noo heli karay rabbigayow nagu hagoog hargeysa iyo hurdiya hobyiyo hoolaa wajeer hareeraha haawinaa halkaan iyo buurha kaba hiiraan meesha ay dhahaan habaas weyniyo hawaash intii geel laga hoyo hoggaan awr lagu qabto haybtii Soomaalida iyo hilbuhu ay ka hadlayaan hagaag baan kuu baryay hirdoogle iyo caleen hodan adiga ahoo islaamka u hiiliye ilaahowna hamba qabo na soo hoob waa horree dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbo idmo